maraykanka oo isaguna ku saabsan islamarkaana ka hadlaya maraykanka oo ka hadlaya dagaalka Ukraine iyo weliba shirka golaha guud ee qaramada midoobay iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadan caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Pakistan ayaa maanta sheegay in ilaa iyo 890,000 oo Ruus ah ay u tallaabeen dalkaasi Kazakhstan toddobaadkan tan iyo markii madaxweyne Vladimir Putin uu shaaciyey in qayb ahaan la wacyigeliya askarta kaydka si ay uga dagaalamaan Ukraine iyadoo raggaasi ay raadinayaan in ay ka gabadaan islamarkaana ay ka baaqsadaan u yeedhitaankaasi ciidamada la isugu yeedhayo waxaana iyaga oo dhulka maraya amaba diyaarad adeegsanaya u baxsadeen waddamada la jaarka ah. dalalka Kazakhstan iyo Georgia ayaa oo labadooduba ka mid ahaa waddamadii midowda Sovieti ayaa u muuqda kuwa ugu badan ee ay u tallaabeen dadka adeegsanaya gawaarida baaskiiladaha amaba cagahooda maalaya. kuwa dalkugalka u baahan waa dalalka dalkugalka u baahan ee ay ka mid yihiin waddamada Finland iyo Norway ayaa sida oo kale dhulka laga soo gelayay iyadoo tigidhada diyaaraduhuna ay si degdega u dhammaadeen iyagoo qiimahoodu aad u sarreeyo. booliiska rabshadaha ka hortaga iyo weliba ciidamada ammaanka ayaa isku dhaceen dad banaanbax sameynaya islamarkaana ka dhigaya dhowr magaalo ku yaala dalka Iiraan xilli ay socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dhimashada gabadh ay qabteen booliiska anshaxu kadibna markii gabadhaasi ay si fiican isku asturi weyday. dibadbaxyadii u dambeeyey ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Karaaji iyo Yasid iyo weliba kuwo kale ku yaala dalkaasi Iiraan iyadoo ay sii socdaan baaqyada ku aadan in la helo cadaalada taasoo soo bilaabantay 17 bishan Sebtembar. mas-uuliyiinta Iiraan ayaa sheegay in 40 qof ay dhinteen tan iyo markii dibadbaxyadu ay bilaabmeen inkastoo kooxaha xuquuqda aadamuhu ay tirada intaasi ka badinayaan. Mahsa Amini oo ahayd gabadha 22 jir ayaa magaalada Dahraan lagu xidhay 13 bishan Sebtembar iyadoo mas-uuliyiintuna 3 maalmood kadib ay shaaciyeen inay geeriyootay. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa si toos ah ugu amartay fanaanada caanka ee reer Colombia ee Shakira inay hor timaado maxkamadda iyadoo loo haysto eeda la xidhiidha inay ku guuldarraysatay inay bixiso 14 milyan iyo 31 kun oo dollar oo ah cashuurta dakhliga qofka waxaana sidaasi muujiyey dukumentiyada maxkamadda maanta. fanaanadan oo da'deedu ay tahay 45 sano islamarkaana magaceedu dhammaystiran uu yahay Shakira Isabel Mebarak ayaa diiday bishii Julaay in cagta dhulka loo dhigo kiiska taasoo macnaheedu yahay inay waajahayso kiiska oo keeni kara in loo diro 8 sannadood oo xabsiya. maxkamadda Asbulgas Dilburgat ayaa maanta xaqiijisay in dacwaddu ay socon doonto iyada oo muddada la qaban doono ama ay bilaabmi doontana la shaacin doono. dacwad ogayaasha ayaana fanaanada la raadinaya xabsi 8 sanno ah iyadoo eedeeduna ay tahay inaanay bixinin cashuur intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2014 iyadoo muddadaasina sheegtay inay ku jirtay nolol geedi ah oo la xidhiidha shaqadeeda. dhegeystayaal warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. dhegeystayaal warbixin la xidhiidha golaha wasiirada oo ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya oo inoo soo socotay haatanna aynu u kacno ama aynu ku bilowno dhinaca Hargeysa. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay 2 xeer oo ku saabsan doorashooyinka kuwaasoo shalay ku celiyay golaha wakiilada isagoo si kooban u sheegay in muddada 9 bilood ah ee guddida doorashadu ay ku sheegeen inay ku qaban karaan doorashada madaxtooyada ay ka dhalanayso muddo kordhin xilka madaxweynaha. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleebaan Maxamuud Aadan oo warbaahintii wax ka weydiisay tallaabadii shalay qoraal ahaan uu ugu celiyey dib golaha wakiilada Somaliland 2 xeer oo hore uga soo gudbay aqalka wakiilada Somaliland ayaa faahfaahin dheeraad ka bixiyey sababaha ugu celiyey golaha wakiilada. laba golo burbay oo isku golaha danaay ma qurux badna marku meesha kuma jiro xeerkana waxay iga dhigaysaan waa warqadan markii horeba garaacnay yaday qoyday يا مid كان طبعا دور حوالي وضو وانا عين ان قراها الساعة دحديثة مركتشراي انو انتانو كنا صامين وكنا مرك دحدين انو يغضم ميسانو ولو سونا اكسنو هشيسة ودقو دبكو قابيو
ay labada dhinac isu soo dhowaadaan markay wax isla gaadhaan iyo heshiiyaan bay qurux badan tahay inaanu annana gallo kii oo dhan xeerkaasu waa gaadhsiiseenu dadkiina welwel baa gaadhgelisay gudoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan waxa uu isdul taagay sida uu sheegay inaanu jeclayn in khilaaf golaha wakiilada ka dhex dhashay uu saameeyo aqalka kale ee guurtida ee uu gudoomiyaha u yahay sida uu hadalka u dhigay welwel ma jiro golayaal waa berrina waa murmi jireen haddana waa murmaynaa berrina waan murmi doona waana laga heshiinayaa macno male wax weyn oo saa u sii ridan mid laysku khilaafsan yahay 46 baa noo soo qoray 46 baa warqada noo soo oori ma soo marin borosaskii raalliga kama nihin horta intaan aniga soo qorin waxay ahayd maadaama majority-in iyo saxaade marka anigu haddii labada gole inay maris khilaaf wada dhex galo diyaarumay gabagabadiina gudoomiye saleebaan ayaa si kooban uga jawaabay su'aal la xidhiidhay qoraalkii ka soo baxay guddiga doorashooyinka somalilan ay ku sheegeen muddo 9 bilood ah in doorashada madaxtooyada ay ku qaban doonaan isagoo sheegay in arrintaasi ay ka dhalanayso muddo kordhin walow ka gaabsaday inuu sheego muddada ay kordhinayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka dii komishankii yidhi la qaban kari maayo oo yidhaaheen muddadii wacayneed ku qaban kari mayno dee wixii hadhay waa kordhin geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan ayaa qoraal uu soo saaray oo ku socodsiiyey gudoomiyaha golaha guurtida oo u akhriyay warbaahinta xogayaha guud ee golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq siciid ayaanleh waxa uu ku sheegay islamarkaana ugu baaqay gudoomiyaha golaha guurtidu in labadaasi xeer ee wax kabeddelka lagu sameeyey uu goloweynaha guurtida u gudbiyo isagoo qodobo dastuurka somalilan ka mida u daliishaday islamarkaana kula taliyey gudoomiyaha guurtidu in goloweynaha uu labadaasi xeer u gudbiyo si ay uga gutaan buu yidhi waajibaadkooda dastuuriga ah weli waxa taagan oo aan la dhammaynin khilaafkii golaha wakiilada somalilan dhexdooda ka dhashay ay mudanayaasha golaha wakiiladu laba dhinac ugu kala jabeen kadib ansixintii labadaasi xeer ee wax kabeddelka lagu sameeyey iyadoo taariikhdii arrintaasi ay dhacdayna ay ahayd 19 bishan aynu ku jirno sida muuqatana waxaa la dhowri doonaa maalmaha soo socda halka arrimahani ay saldhigaan salaasadan maanta ayaa lagu wadaa in la soo gebagabeeyo codbixinta u qabanqaabiyey ruushka ee laga qabtay dhulka uu ka qabsaday ukrain codbixintaasoo loo qaadayey in ay maamuladaasi ku biiraan ruushka ayay dowladda ukrain iyo weliba xulafadeeda reer galbeedku ku tilmaameen mid been abuur ah warbixin ayaa v o a arrintan ka diyaarisay waxay noo soo koobaya wariyahayaga xuseen barre aadan dalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanka iyo dhammaan dalalka xulafada la ah ukrain aanay aqoonsan doonin marnaba natiijo kasta oo ka soo baxda codbixinta been abuurka ah ee uu ruushku soo qabanqaabiyey sida ay hadalka u dhigtay afhayeenka aqalka cad karin jean-pierre codbixinta ayaa jimcihii ka bilaabatay gobolada luhansk iyo kherson ee uu ruushku ka taliyo iyo meelaha la haysta ee gobolada donetsk iyo zaborojijia meelaha qaarkood askarta ruushku waxay garaacayeen albaabada guryaha si ay u amraan dadka reer ukrain in ay iyada oo qori lagu hayo codeeyaan madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa ka warbixiyey dagaalo culus oo ka dhacay deegaano badan oo ukrain ka tirsan xilli uu jeedinayay khudbadiisii habeenkii isniintii ee xalay isagoo oo sheegay in xaaladdu ay si gaara ugu daran tahay gobolka donetsk oo uu sheegay inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee cadowga ukrain isagoo xusay in ay samayn doonaan wax walba si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa cadowga dhinaca kalena dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeedo baaqa ciidamada ee madaxweyne putin ayaa ka dhacay dalka ruushka iyada oo boolisku ay xidheen boqolaal dibadbaxyaal ah oo ka qayb qaadanayay bannaanbaxyo ka dhacay waddooyinka magaalada caasimadda ee moscow iyo meelo kale gobolka siberia ee dalka ruushka isniintii nin 25 jir ah ayaa toogasho ku dilay taliye ciidan oo ku sugnaa xarun lagu qorayey ciidamada sida uu guddoomiyaha deegaankaasi sheegay rag badan oo ka soo horjeeday dagaalka putin ama ka baqaya in lagu dilo goobta dagaalka ayaa si lama filaana uga baxsaday waddanka ruushka iyagoo si deg dega u sii raacay diyaarado u socday dalal kale halka qaar kalena ay safaf dhaadheer ugu jiraan gawaarida dhulka ee ku sii jeeda xuduudaha ruushka uu la wadaago waddamada finland georgiya iyo dalal kale geesta kalena saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in putin uu siiyey maraykanka iyo xulafadiisa fursad hadiyad ah usbuucii hore kadib markii uu hadal qaaday arrimaha nukliyerka islamarkaana uu ku baaqay in askarta kaydka ah la howlgeliyo kuwo cusubna la qoro isaga oo ku baaqay aftida xilli maraykanka iyo xulafadiisu ay qaramada midoobay uga hadlayeen madax bannaanida iyo nabadda caalamiga ah iyo amniga
saraakiishan maraykanka ah ayaa sheegay in arrintan ay ku soo beegantay wakhtigii ugu habboonaa iyada oo shalay oo isniin ah laga xusay qaramada midoobay maalinta caalamiga ah ee dabargoynta hubka nukliyeerka. odayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa isniintii sheegay in hubka nukliyeerka ay horseedi karo xasuuq iyo fawdo, waxaanuu sheegay in baabi'inta hubkaasi ay noqon doonto hadiyadda ugu weyn ee bini'aadanimada ee badbaadin karta jiilalka mustaqbalka soo socda. wagaagi dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinayey warbixintaasi oo ay v o a ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee dalka ukrain. waxaa gooni-goosatada ah ee ku hadasha luqadda ingiriisiga ee dalka kameruun ayaa markii ugu horreysa qirtay isku dhac dhimasho dhaliyey oo dhex maray kooxdan oo kala jabtay. muuqaalla baraha bulshada lagu baahiyey sabtidii ayaa dagaalyahanada kooxdani ay ku sheegeen inay sii daayeen dhowr qof oo rayid ah oo ay kooxdani soo qabteen. dagaalyahanadan ayaa soo bandhigay 2 qof oo sheegay inay yihiin taliyayaasha kooxdan iyo weliba hubkoodii, kuwaasoo ay qabsadeen kooxdani gooni-goosatada ah ee mariniska loogu magacaabo. warbixin ay arrintan v o a ka diyaarisay waxay noo soo jeedinaysaa falastiin axmed iimaan. kooxda gooni-goosatada ah ee iyana lagu magacaabo buffalos ayaa iyaguna baahiyey muuqaal ay ku sheegeen in laga duubay baali, degmada ingiliishka looga hadlo ee ku taalla waqooyi galbeed, oo ay sheegeen inay soo weerareen koox kale oo uu sameeyey jenaraal ismagacaabay oo loo yaqaano big number. waxay xuseen in kooxda jenaraalku ay afduubteen nin ayna weydiisanayaan madax furasho. kooxdan buffalos oo baahiyey muuqaalkan oo ay ku sheegeen in big number uu dagaalyahano u soo diray si ay u qashqashaadaan rayidka, waxa ay sheegeen in afduubka, dilalka, jirdilka, kufsiga iyo dadka xubnaha jirkooda la jarjaro ay korortay. buffalos waxay sheegtay in kooxdani gooni-goosatada aysan sheegan karin inay ka ilaalinayaan shacabka xadgudubyada ay u geysanayaan ciidamada dowladda haddiiba ay dagaalyahanadu ay ku kacayaan falal xunxun oo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha. labada dhinac ee dowladda iyo hogaamiyaha kooxdan gooni-goosatada ah ee ingiliishka ku hadasha ayaa xaqiijiyey muuqaalada kooxaha iska soo horjeeda ee gooni-goosatada gobolka galbeedka dalkaasi ku sugan. qaar ka mida kooxaha gooni-goosatada ayaa ku sheegay baraha bulshada inay ku baaqayaan in si deg deg ah loo sii daayo dhammaanba dadka la qabsaday oo ay ka mid yihiin rag iyo dumar ka mid ah wadaadada kiniisadda katoliga iyo 2 qof oo kiniisadda ku cibaadeysanayay, kuwaasoo dhowaan laga soo afduubay kiniisad ku taala xuduudda Nigeria. kiniisadda katoliga ee Cameroon ayaa sheegtay in ragga hubeysan ee afduubkan geystay ay dalbanayaan $100,000 oo madax furasho ah. markii ay bilaabatay xasarada kooxaha gooni-goosatada sanadkii 2016 waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe ee Yaounde inay waxbarashadu u adeegsanayso sida aalad lagu marin habaabiyo laguna milo dadka ingiliishka ku hadla si loogu dhex daro inta badan dadka dalkaasi ee ku hadla Faransiiska. kooxahan kala jabay ayaa sheegay in bandowga ay kooxdani soo rogtay ay calaamad u tahay inay dagaalyahanadu gacanta ku hayaan gobolada ingiliishka looga hadlo oo aysan dowladda dhexe howl ku lahayn, iyaguna ay yihiin kuwa dhaawacaya shacabkooda. kooxda ka jabtay kooxahan gooni-goosatada ayaa sheegtay in aysan taageersanayn dugsiyada la xiray ee ay kooxdani gooni-goosatadu soo rogeen. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay labada dhinac ee militariga Cameroon iyo kooxaha gooni-goosatada wadankaasi in ay dileen dad rayid ah, guryahoodiina ay gubeen intii ay colaadu socotay. labada dhinac ayaa iska diiday eedeyntaasi. qaramada midoobey waxay sheegtay in dagaalada Cameroon ay ku dhinteen 3,300 oo qof halka 750,000 oo qof ay ku barakaceen. aad iyo aad ayay dhegeystayaal umahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ay v o a ka diyaarisay kooxdaasi gooni-goosatada ah ee dalka Cameroon. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. sidii dhegeystayaal aad ku maqlayseen qeybaha hore idaacaddayadaba madaxweynaha dalka Kenya aan idhaahdo William Ruto ayaa goordhaweeyada ku dhawaaqay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada ee xukuumaddiisa cusub ee uu soo dhisay. haddaba haatan waxaa khadka si toosa magaalada Nairobi uga jira wariyahayaga halkaasi nooga soo warramay Yaasiin Ciise Wardheere. ugu horreynba Yaasiin, haddaad maqlayso golahan wasiirada yaa ka mida iyaynu ka tilmaami karaynaa? shuruucow aada iyo aad ayaan umahadsan tahay. aad baa loo sugayay warar badan oo kutiri kuteena ayaa baryahan oo dhan aada usoo noqnoqonayay. inta badanse waxaanad moodaaba inay ku lahaayeen wararka xidhiidka ee heelayay, waxaana aad dadka gobolka waqooyi bari ay si weyn ugu biirsadeen aadan bare ducaale oo muddo dheer ahaa gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka laga soo doorto Garissa Town oo noqday
wasiirada kiida ama maxalbowraha u ah wadanka kenya oo noqday wasiirka gaashaandhiga ninka la yihahdo musalia mudabari oo mar ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenka wadanka islamarkaana hogaamiye xisbiga ammaani ee galbeedka wadanka kenya oo taageeradii 9 bisha agosto u helay madaxweynaha wadanka kenya william ruto lagu doortay aadka u taageersanaa ayaa isna waxa uu noqday jirada loo yaqaano brian cabinet oo isagoo ah ninka bisha kala soconaya hawl maalmeedka joogtadaaya golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shaqooyinka ay qabanayaan ninkaasi mudabari ayaa la yidhahdaa waa ninka markaasi abaasayso prime ministerka oo kale in la siiyey maadaama uu taageerada weyn hayso wasaaradaha muhiimka waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha amniga gudaha ama wasaaradda arrimaha gudaha oo loo magacaabay professor Kithure Kindiki oo kamid ah profesoradii waaweynaa ee jaamacadaha wadanka kenya waxaa kaloo inta ku jira wasiirka arrimaha dibadda ninka caanka eeyaalaafarea oo mar ahaan jiray afhayeenka madaxtooyada wadanka kenya hase yeeshee dhowaan ahaa gobornarka gobolka owadala gobolka waqooyi bari wadanka kenya ee magaalada machakos waxaa kaloo isna kamida wasiirka maaliyadda ninka loo dhiibay isaguna ayuu yahay wasiirka muhiimka ah ee aadka dadku ay indhaha ugu hayaan la yidhaahdo madaxiisa isagana mr juguna dungu waxaa kaloo kamida gabadha caafimaadka loo dhiibay susan wafula la yidhahdo oo dhammaantood kamida dad aad loo sugayey horeyna loo sii sheegay waan gartay yaasin markaynu eegno dabcan isbahaysibu ku soo baxay madaxweynaha waddanka kenya william ruto siduu xubnaha markaynu eegno ugu qeybiyey isbahaysiyada kale ma ku jiraan mise waxa weeyaan intii isaga la socotay un bay ka kooban yihin runtii xisbiga shuuca la yidhaahdo UDA United Democratic wadanka kenya ee alliance ahaa ee uu hogaaminayay william ruto oo ahaa garab weyn oo markii hore kamid ahaan jiray xisbiga talada haye jubilee balse markii madaxweynaha kala booneen isbahaysiga ODM ama Azimio la Umoja oo uu hogaamiyo Raila Odinga ra-iisul wasaaraha wadanka kenya oo lagaga adkaaday doorashada kuma jiraan mucaaradka oo waxa ay sheegeen inay yihiin garabka isbahaysiinta ay ku jiraan axsaab fara badan oo ammaani uu kamid yahay oo UDA ka mid tahay oo UDM ay ku jirto oo free kuwa la yidhaahdo independent kuwa la yidhahdo waxkana ay ku jiraan ayaa laga soo halqaaday gaar ahaana gobolka waqooyi bari iyo gobolka xeebaha oo kamida meelaha inta weyn taageerayaasha mucaaradku ay badnaan jireen ayaa iyaguna kamida dadka sida weyn loo soo dhaweeyey gaar ahaan ducaale oo gaashaandhiga helay iyo salim uya oo isagana dhinaca macdinta loo dhiibay oo kasoo jeeda gobolka xeebaha waxaa kaloo gobolka xeebaha heshay gabadha la yihahdo aisha juma oo kamid ah gabdhaha ugu qaansan baarlamaankana ku jiri jirtay wax badan oo loo dhiibay wasiirka dibadooodka iyo arrimaha adeegyada bulshada waan gartay saynu ka warqabno ama aynu haatanba arkayno waxaa wasiirka gaashaandhigga loo dhiibay siyaasi soomaaliya oo waqooyi bari kenya kasoo jeeda aadan bare ducaalo saad aduba xustee horena waa hogaamiye aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya maxay soomaalida waddanka kenya ku dhaqan gaar ahaan waqooyi bari kenya uga dhigan tahay in xukuumaddan william ruto ay siisa jagadaasi shuruuca saad sheegtay waxa weeye ololihii ugu weynaa ee ka socday gobolka waqooyi bari usoo noqday ninka kenya ee ugu muhiimsanaa ee isbahaysiga UDA ee uu hogaamiyo madaxweynaha wadanka aatan ku guuleysay 9 bishii doorashadii dhacday william ruto waxaana lagu abaalmariyey jira kamida kuwa ugu waaweyn oo isagadaasi horey usoo qabtay ilaahay u naxariistee senatarkii la oran jiray maxamed yuusuf xaasi oo waayo 2011 isaguna ahaan jiray wasiirka gaashaandhigga waxaanay jiradani tahay hawooyinka shanta ah ama lixda ugu waaweyn wadanka kenya marka la fiiriyo waxaa kaloo iyana kamid ah dadka sida gaarkaa dadka usoo siitay Kithure oo isagu ahaa afhayeenkii baarlamaankii hadda dhacay ee wadanka kenya ee 12aad oo laga dhigay attorney general ama xeer ilaaliyaha qaranka marka arrintaasi waxay ka dhigan tahay gobolka waqooyi bari markaad aad fiiriso inay tahay tixgelin weyn oo aad iyo aad muhiim u ah inkastoo ay u badnaayeen dhanka mucaaradka oo isagu ahaa ninka ku mutugay oo labadooda banaanka la wada dhigay markii hore madaxweyne ku-xigeenka iyo isagaa laga tuuray gudoomiyaha adduunyada oo rag dhaarsaday oo aad u wada shaqaynayay taana ay muujinayso in dadka gobolka waqooyi bari ay heleen jiro muhiima oo wax weyn ka bedeli doonta marka laga hadlayo arrimaha ammaanka oo weliba aad saameyn ugu leh gobolka dariska waxa ee dadka soomaaliya ay degan yihiin iyada ciidamo kenyaanina ay joogaan gudaha wadanka soomaaliya ilaa 2011
waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyey yaasiin, waa qayb ka mid a uun xubnaha golaha wasiirada intanuu madaxweyne ruuto haatan shaaciyey, ma la ogyahay xubnaha kale goorta uu shaacinaya ama xukuumadda soo dhammaystirayo? ilaa hadda 22 golaha wasiirada ka mid ah iyo 3 ka mid ah wataliyayaasha sarsare ama 2 ka mid ah baan idhaahdee gabadhii wasiirka gaashaandhigga soo martay ee la oran jiray Monica Juma ayaa laga dhigay wataliyaha sare ee amniga waddanka Kenya, iyadoo wasiirka tamarta soo noqotay, wasiirka gaashaandhigga soo noqotay. Hadda waxay la taliyo sare u noqonaysaa wasiirka la yidhaahdo professorka la yidhaahdo professor Kithure Kindiki. Marka waxaa la filayaa baa laleeyahay jagooyin badan sida madaxweyne hore u sheegay, ama ha noqdeen kuwa saraakiisha sarsare ee xogayaasha joogtada, iyo haddii ay dhici karto in wasiirada qaar lagu soo daro, inkastoo jagooyin cusub oo loo yaqaano ku-xigeenada oo kale oo waa dhexdeera markii madaxweynihii hore waddanka uu magacaabayay nidaam gaara oo adeegayaal dhinaca maamulka loo bixiyey oo maaragtay secretary ka wada tirsan. golaha wasiirada ma moodin in koloyo waaweyn ay leeyihiin, laakiin wasiir ku-xigeenno iyo xogayaal joogtaa iyo jagooyin kale oo waaweyn ayaa iyana ka mida waxa la sugayay. waagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa weriyaha iyaga nooga soo waramaa dalkaasi Kenya oo magaalada Nairobi khadka telefoonka si toos uga jiray. Yaasiin Ciise Wardheere, aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa.